ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa lagu warramay inay saacadihii ugu dambeeyay qaadeen wax loogu yeeray weerarkii ugu xooganaa ee ay tan iyo bilowgii dagaalka ka geystaan dhulka nidaamka Israa'iil ka taliyo iyo saldhigyada Mareykanka ee wadamada gacanka Carbeed. weerarka oo ahaa muujada 37 ee kan ay ciidamada IRGC ugu magac dareen ballanqaadka afraad ee dhabta ah ayaa Israa'iil fahanteedu qirtay inay xakameyntiisa la dhibtootay inkastoo aan nidaamka Tel Aviv si rasmi ah u shaacin khasaaraha weerarkan saacadaha socday ka soo gaaray. haddana waxa ay hoosta ka xariiqeen inay wax ka yar 70% ku guuleysteen qabashada madaafiicda tiradoodu ka badnayd 20 ka gantaal ee kuwa balastiga ah oo ciidamada ilaalada kacaanku dhulka nidaamkaas la beegsadeen muddo 3 saacadood gudahood ahayd. weerarkan oo ilaalada kacaanku horey u sii shaaciyeen qaadistiisa ayaa jawaab buuxda u noqday sheegashadii Mareykanka iyo Israa'iil ee ahayd inay duqeymahooda gudaha Iiraan burbur baaxad leh ugu geysteen nidaamka madaafiicda ridada dheer ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah, isla markaana aysan Tehraan haatan ku harin awood hubeed oo ay ku dhibaateyn karto dhulka nidaamka Israa'iil ka arrimiyo iyo dalalka Khaliijka. Tel Aviv, ilaha dhaqaalaha Haifa, waqooyiga Ramallah, saldhigyo military iyo sirdoon ayaa lagu warramay inay waxyeello culus ka soo gaartay duulaankii ugu dambeeyay ee ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan. jawaabtan oo sidaan hore u niri ahayd mid ka culus guud ahaan weeraradii Iiraan ka geysatay Israa'iil iyo dalalka Khaliijku, waxa ay goor horeba abuurtay qayladaan xoogan oo ka imanaysa wadamada gacanka Carbeed iyo rayidka Israa'iil oo soo jeedinaya in si dhaqso leh loogu howlgalo xalka joojinta dagaalka Iiraan. gelinka dambe ee maanta golaha ammaanka qaramada midoobay waxa ay u codayn doonaan soo jeedin ay golaha geysay boqortooyada Bahrain kaas oo ku baaqaya in Iiraan si dhaqso leh u joojiso weerarada ka dhanka ah dalalka Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Sacuudiga, Imaaraadka iyo Jordan. waxa sidoo kale soo jeedintani ku baaqaysaa in Iiraan joojiso kaalmada ay siiso kooxaha hubaysan ee gobolka Bariga Dhexe ka dagaalama. docda Israa'iil rayidka ayaa xoojinaya baaqyada ah in nidaamkoodu si dhaqso leh u joojiyo weerarada ka dhanka ah Iiraan ee sababaya weerar celisyada culus ee Tehraan ka imanaya. waxa rayidka nidaamkan oo sidii dagaalku u bilowdayba ku hoos jira difaacyada dhulka hoostiisa ah ee madaafiicdu soo jeedinayaan in si aan shuruud lahayn nidaamkoodu u joojiyo dagaalka. hayeeshee Al Jazeera ayaa ku warrantay in Tel Aviv qorsheynayso inay duulamada Iiraan iyo Lubnaan sii wado ugu yaraan 2 asbuuc. dhimashada kordhaysa ee askarta Mareykanka, dhaqaalaha tirada badan ee sida maalinlaha ah Washington uga baxaya howlgallada weerarka iyo difaaca isugu jira ee Iiraan ka dhanka ah, iyo qayladhaanta ka ogan gudaha Mareykanka ee lagu doonayo in aqalka cad qeexitaan dhammaystiran kaga bixiyo ujeedada dagaalkuba ma aha kuwa u hiilinaya qorshaha Donald Trump iyo Netanyahu-ga Israa'iil ee ah guulka helidda gulufka Iiraan. Iiraan docdeeda waxa khubarada xiisadani qabaan inay doonayso dirista fariin kama dambaysa oo xal u noqota inay si buuxda u joogsadaan weerarada Mareykanka iyo Israa'iil ee dhowrkii biloodba mar noqday haatan. waxa ay Tehraan doonaysaa in cadaadiska ay gobolka saarayso xirnaanta Hormuz iyo waxyeelada xadbeelka ah ee ay gaarsiinayso nidaamka Israa'iil iyo saldhigyada Mareykanka ee gobolku ay noqdaan xalka kama dambaysta ah ee jaangooya inaan dib dambe loo hindisin duulaan ka dhana Jamhuuriyadda Islaamiga ah. doonista Tehraan ee xaqiijinta hadafkanina waxa uu muuqdaa mid aan sahlayn in si dhaqso leh dagaalka loo soo afjaro, oo waxaaba madaxda sare ee Tehraan ku celcelinayaan maalmihii dhawaa in haddii xitaa Mareykanka iyo Israa'iil dagaalka joojiyaan ay iyagu docdooda sii wadi doonaan maadaama aynaan bilaabinna maba aha in joojintiisa looga fadhiyo ayayna ku doodayaan hoggaanka sare ee Iiraan. cadaadisyada xoogaysanaya ee gudaha iyo dibadda waxa ay soo dhaweyn karaan in Mareykanka iyo Israa'iil docdooda dagaalka joojiyaan sida khuburadu oo dorosayso, balse gulufkan oo maalintiisii 12aad galay uma muuqdo mid dhammaadkiisu dhow yahay.